kulanti kulanti waxaan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaalida iyo caalamkaba haddii aan ku bilowno dhanka kulanti waxaan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaaliya qodobadan oo kusoo qaadanayna waxaa kamid noqon doona ururka Taliban waxay ku dhawaaqeen in ay sameyn doonaan dowladda loo dhan yahay isla markaasna ugu baaqay dumarka dalka Afghanistan inay qayb ka noqdaan guddiga doorashooyinka Soomaaliya waxay soo saareen habraaca doorashada xildhibaanada golaha shacabka iyadoona sidoo kale maanta safiirka dowladda Soomaaliya ee Sacuudiga waraaqadaha aqoonsiga laga gudoomay aan ku bilowno daawadayaal dhanka Afghanistan iyo magaalada Kabul ee ururkan Taliban waxa ay ku dhawaaqeen xabad joojin inay jirto isla markaasna sidoo kale dumarka ama nagaha dalkaasina waxay ugu baaqeen inay kamid noqdaan ama ku biraan dowladda cusub ee ka dhalan doonto dalkaasi ee Afghanistan iyadoo isku dayay inay dejiyaan dadka ku sugan magaalada Kabul ee caasimadda ee dalkaas Afghanistan iyadoo labadii maalmood iyo maantaba uu ka jiro jaawareer xoogan garoonka magaaladaasi Kabul iyadoo dadka isku dayayaan inay ka baxsaan xaaladda soo cusboonaatay ee magaaladaasi waxaana sidoo kale guud ahaanba socoto dadguraynta dadka shaqaalaha iyo weliba safiiradii ee ku sugnaa magaaladaasi Kabul sida ay soo tabinayso warbaahinta wakaaladda Reuters waxaana ilaa hadda sidoo kale socoto sidoo kale in ciidamo ka socda dalka Mareykanka ay gacanta ku hayaan ammaanka garoonka magaalada Kabul inkastoo 72 saacadood ee hore ururka Taliban ay ugu qabteen ay dhamaatay khudbad waxa la jeediyay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu si cad u sheegay in lagu fashilmay dagaalka Afghanistan isla markaasna uu sheegay in 20 sano ka badan aysan sii joogi karin gudaha dalkaasi Afghanistan aysan waqti xaadirkan diyaar u ahayn Mareykanku in ciidamo iyo kharash fara badan uga baxo buu yiri gudaha dalkaas Afghanistan waxa uu sheegay qorshihii ay u galeen gudaha dalkaasi Afghanistan in ay soo gabagowday isla markaasna waqti xaadirkan wixii ka dambeeya aysan iyagu diyaar u ahayn inay dhisaan dimuqraadiyad iyo dowladda ka dhalatan gudaha magaalada gudaha dalkaasi Afghanistan aqalka cad saacad waxa uu sheegay in ay waqti xaadirkan ay ahayd bay yiraahdeen waqtiga ugu habboon ay ciidamadooda kala soo baxay lahaayeen gudaha dalkaas Afghanistan waxa uu eedan dusha uga saaray ama uga tuuray madaxda dalkaasi Afghanistan iyo ciidamadii militariga ee dalkaasi Afghanistan uu sheegay in lacago malaayiin dollar ay ku kharash gareeyeen sidii loo dhisi lahaa ciidamo adag oo dalkaas uu yeesho balse uu sheegay in ay ku fashilmeen madaxdii gudaha dalkaas Afghanistan iyagu hogaaminayay Taliban dhanka kale waxa iyagu ay sheegeen in madaxdii ugu sareysa in ay maalmaha soo socdo ay ku dhawaaqi doonaan dowladda Islaamiga oo ka dhaqan gasha ee dalkaasi Afghanistan dhanka kalena dalka Holland waxa iyagu ama Netherlands loo yaqaan waxa ay sheegeen in ay diri doonaan ciidamo dheeraad ah gudaha dalkaasi Afghanistan si ay u soo daado gurayaan dadka u dhashay bay yiraahdeen dalka Holland ama dalkaasi Netherlands sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Holland in ka badan 40 qof oo Afghaanistaaniyiin iyo weliba sidoo kale shaqaalihii ka shaqeynayay safaaradoodii iyo qoysaskeediiba in laga soo daadgurayn doono gudaha magaalada Kabul saacadaha soo socoto waxay yiraahdeen tani waxay khatar cad ku tahay ururka Taliban maadaama waqti xaadirkan ay sheegeen in safaaradoodii irdaha la isugu laabay raashka dhanka kale isaga waxa uu ugu wacay dadka gudaha dalkaas Afghanistan ku sugan gaar ahaan dadka laga tira badan yahay in ay wada hadalada dhinaca ka soo galaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Russia waxa uu isagu sheegay inuu ugu baaqayo Taliban in ay wada hadallo la furaan dadka siyaasiyiinta iyo dadka laga tira badan yahay ee ku nool gudaha dalkaasi Afghanistan Lavar waxa uu sidoo kale sheegay inay jirto cadeemo muujinaya buu yiri in waqti xaadirkan Taliban ay rajeynayaan in ay dhisaan dowladda loo dhan yahay oo ay dadku guud ahaanba iyagu iska dhex arki karaan dhanka kale Jarmalka isaga waxa uu diray diyaaradii labaad oo soo daadgurayn doonto shaqaalahoodii ku sugnaa magaalada Kabul iyo sidoo kale sida ay sheegeen dad turjumaan u ahaa oo u dhashay dalka Afghanistan xaaladda iyo wararka Kabul ayaa ilaa hadda mid aan xasilooneyn dadka shacabka ayaa ku sugan garoonka magaalada Kabul oo ay buux dhaafiyeen ciidamada militariga Mareykanka ayaana waxa ay iyagu gacanta ku hayaan amniga garoonka magaaladaasi Kabul diyaaradaha militariga oo kaliya ayaa waqti xaadirkan ka duulaya kana soo degaya garoonka inkastoo diyaaradaha ka degaya aan loo ogolaanin diyaaradaha shacabka oo inay ka dhoofaan ama ay ka soo degaan gudaha dalkaasi Afghanistan dhanka kale Faransiiska isagu waxa uu sheegay ama ugu baaqay wadamada Jarmalka iyo waliba sidoo kale wadamada kale ee midowga Yurub in ay si cad jawaab uga bixiyaan sidii wada shaqeyn xoogani oo arinta soo cusboonaatay ku aadan Afghanistan looga hadli lahaa waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyay in loo sameeyo sharciyo adag buu yiri meengeliyo doonka ku soo xoomi doona qaaradda Yurub oo uu sheegay waqti xaadirkan loo baahan yahay in il gaar ah lagu eego isagoo maalintii shalay ee kala hadlayay dadka reer Faransiiska ee telefishinka qarankaasi Macron waxa uu si cad u sheegay in ay muhiim tahay in isbedelada soo cusboonaaday ee gudaha dalkaas Afghanistan ay noqon karaan buu yiri mid xaaladda amni ah oo dalkeena ay soo wajahi karto buu yiri isla markaasna loo baahan yahay in waqti xaadir kale aad isha lagu hayo India
waxay sidoo kale iyadoo ay sheegtay in ka badan 120 qof ee laga soo saaray gudaha dalkaasi Afghanistan oo isugu jira bay yiraahdeen dadkii ka shaqeynayay safaaradoodii iyo waliba sidoo kale qunsuliyadoodii ay ku lahaayeen gudaha magaalada Kabul ee dalkaasi Afghanistan. Diyaarad la Indian Air Force One ayaana waxa ay soo dadgureysay dadkani iyadoona safiiradii ku sugnaa iyo dadkii madaxda dowladda ah ee ku sugnaa gudaha iyo diblomaasiyiintiiba si laga soo dadgureeyay gudaha magaaladaasi Kabul ee dalka Afghanistan. dhanka kalena daawadayaal arrimaha Soomaaliya ee maanta guddiga doorashooyinka waxa ay soo saareen godhow habraaci doorashada xildhibaanada golaha shacabka waxaana kamid ah qodobo la xusay in odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka beelaha leh kuraasta la siiyay awoodda xulista ergada iyo beel kasta oo leh 3 kursi waxaa lagu waajibiyay in mid uu gaar u yahay gabdhaha musharax walba waxaa laga doonayaa 10,000 oo dollar musharaxiinta ragga halka gabdhaha 5,000 oo dollar iyagu laga qorsheeyay. habraaca doorashada golaha shacabka iyo shuruudaha isdiiwaangelinta uu soo saaray guddiga doorashada heer federaal lama ogo in habraacu yahay mid kama dambeysa iyadoo la filayay 19 bishan inay shir isugu yimaadaan golaha midowga wadatashiga qaran oo inta badan habraacyada iyo heshiisyada doorashada ay soo saari jireen kuna shaqeynayeen guddiga doorashada heer federaal iyo dowlad goboleedba. arrintan ayaa sidoo kale waxay soo dedejinaysaa doorashada xildhibaanada golaha aqalka golaha baarlamaanka aqalka hoose taas oo waqti xaadirkan iyadu ilgooni ah lagu eriyo maadaama musharaxiintii golaha senatarada iyadu dhacday inta badanba aad ay fowdo iyo waliba sidoo kale la sheegayo in masuq weyn uu ku baahay. ugu dambeyn daawadayaal safiirka Soomaaliya u fadhiya Sacuudiga ayaa maanta waraaqaha aqoonsiga laga gudumay danjiraha cusub ee Soomaaliya ee goordhow u magacawday Sacuudiga ayaana maanta waxaa danjirnimadiisa uu waraaqdaha u gudbiyay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. danjire Salim Macu Xaaji waxaa waraaqdaha safiirnimada ka gudumay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda u qaybsan arrimaha batroolka Sayid Khalid bin Faisal. munaasabada gudbintan ayaana ka dhacday xarunta wasaaradda dibadda Sacuudiga magaalada Riyadh waxaana goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka kala tirsan dowladda Soomaaliya iyo Sacuudigaba. inta kadib safiirka cusub ee Soomaaliya u fadhiya Sacuudiga danjire Salim ayaa iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda u qaybsan arrimaha batroolka Sayid ayaa waxa ay yeesheen kulan gaar ah waxayna uga wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dhinac iyadoona arrintan ay ku soo aadayso xilli la sheegayo in Sacuudiga uu booqasho rasmi ah uu ku tagi doono ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble oo hadda isagu ku sugan magaalada aandhaha dalka Masar oo booqasho 2 maalin uu ku joogo. kulanti waxaan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaalida iyo caalamkaba haddii aan ku bilowno dhanka kulanti waxaan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaaliya qodobadan oo kusoo qaadanayna waxaa kamid noqon doona ururka Taliban waxay ku dhawaaqeen in ay sameyn doonaan dowladda loo dhan yahay isla markaasna ugu baaqay dumarka dalka Afghanistan inay qayb ka noqdaan. guddiga doorashooyinka Soomaaliya waxay soo saareen habraaca doorashada xildhibaanada golaha shacabka iyadoona sidoo kale maanta safiirka dowladda Soomaaliya ee Sacuudigana waraaqadaha aqoonsiga laga gudumay. aanu ku bilowno daawadayaal dhanka Afghanistan iyo magaalada Kabul ee ururkan Taliban waxa ay ku dhawaaqeen xabad joojin inay jirto isla markaasna sidoo kale dumarka ama nagaha dalkaasina waxay ugu baaqeen inay ka mid noqdaan ama ku biraan dowladda cusub ee ka dhalan doonto dalkaasi ee Afghanistan iyadoo isku dayay inay dejiyaan dadka ku sugan magaalada Kabul ee caasimadda ee dalkaas Afghanistan iyadoo labadii maalmood iyo maantaba uu ka jiro jaawareer xoogan garoonka magaaladaasi Kabul iyadoo dadka isku dayayaan inay ka baxsaan xaaladda soo cusbanaatay ee magaaladaasi. waxaana sidoo kale guud ahaanba socoto dadgureynta dadka shaqaalaha iyo waliba safiiradii ee ku sugnaa magaaladaasi Kabul sida ay soo tabinayso warbaahinta wakaaladda Reuters. waxaana ilaa hadda sidoo kale socoto sidoo kale in ciidamo ka socda dalka Mareykanka ay iyagu ay gacanta ku hayaan ammaanka garoonka magaalada Kabul inkastoo 72 saacadood ee hore ururka Taliban ay ugu qabteen ay dhamaatay. khudbad waxaa la jeediyay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu si cad u sheegay in lagu fashilmay dagaalka Afghanistan isla markaasna uu sheegay in 20 sano ka badan aysan sii joogi karin gudaha dalkaasi Afghanistan aysan waqti xaadirkan diyaar u ahayn Mareykanku in ciidamo iyo kharash fara badan uga baxo buu yiri gudaha dalkaasi Afghanistan. waxa uu sheegay qorshihii ay u galeen gudaha dalkaasi Afghanistan in ay soo gabagowday isla markaasna waqti xaadirkan wixii ka dambeeya aysan iyagu diyaar u ahayn